wafdi uu hogaaminayay Hoganka Nabad Galyada Dawlad Deegaanka Soomaalida Dr. Husseen Hashi Qaasim oo ay wehelinayeen wasiirka xafiiska biyaha kumishinka asluubta taliye ku-xigeenka ciidanka xooga gaarka ah iyo mas'uuliyiin kale ayaa hawlo shaqo u tagay gobolada Qorraxay iyo Doolo wafdiga oo ujeedka socdaalkooda uu ahaa soo dhamaystirka nabadeynta bulshada Yucub iyo Koodbuur ayaa ugu horeyn kulan kula yeeshay qabridaar odayaasha iyo waxgaradka Qorraxay kalena xaajooday arrinta nabadeynta waxayna odayaasha iyo waxgaradka Qorraxay ay sheegeen inay ugu horeyn ka xun yihiin wixii dhacay ee dhibaato ahaa iyo wax kasta oo wiiqaya nabadeynta bulshada ayna diyaar u yihiin nabadda iyo xasiloonida dawladana ay garab ku siinayaan in la soo afjaro colaadda bulshada Yucub iyo Koodbuur wafdiga uu hogaaminayay Hogaanka Dr. Husseen waxa ay u sii gudbeen dhinaca gobolka Doolo waxayna sidoo kale kulan la qaateen oo ay kala hadleen hawlaha nabadeynta odayaasha iyo waxgaradka Yucub waxayna sheegeen odayaashaasi inay ka soo baxeen ballantii heshiiskii hore haddana ay diyaar u yihiin nabadda Hoganka Nabad Galyada ayaa odayaasha hogaaminta dhaqanka labada beelood waa Yucub iyo Koodbuur ay isugu keenay degmada Goglo xarunteeda Koodbuur waxaana gogol nabadeed fidiyay odayaasha iyo waxgaradka Qorraxay wafdiga iyo odayaasha ka socday Yucub ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay Koodbuur kadibna shir saddex goosood ayay ku yeesheen hoolka shirarka ee Koodbuur waxaana shirka nabadeynta labada beelood ee Yucub iyo Koodbuur furay oo ahmiyadiisa ka hadlay Hogaanka Nabad Galyada Dawlad Deegaanka Soomaalida Dr. Husseen Hashi Qaasim hawshan socodnay waa hawl aad ka wada dhagsantiin waa in la sii adkeeyo nabadeyntii aynu dhamaantiin ka wada shaqeynay laba bilood muddo ku dhow hadda aan ka shaqeynay in la sii adkeeyo hawshaas hadda ka hor door muhiim ah oo laf dhabar u ah hawshan ayaad ka qaateen haddana doorkii in la sii laabo ayaa loo baahan yahay maadaama rabno in aysan carqaladoobin nabaddu marka hadduu ilaahay yiraahdo maadaama laga wada dharagsan yahay ujeedada safarkan waxaan jeclaan lahaa inaan toos aan odayaasha ugu soo dhaweeyo dhankoodana ugaasyada suldaamada iyo waxgaradka beelaha ayaa cod ka qaatay waxa ayna soo dhaweeyeen kulanka oo ay ku tilmaameen mid taariikhi ah wax weyn ugu fadhiya waayaan taariikhi ah tilmaana yeelan doonta hadii ilaahay yiraaho waxaan leedahay koofiyadaheenu noqon mahayaan kuwa rasmi ah haddaynan maanta ka gaadhin arrintaas nabadgelyo walaalnimo midnimo haddaynan ka gaadhin ilaahay waxaan ka baryayaa innagana aan inoogeysinayaa in aynu maanta taariikhdaas aynu maanta isugu nimid ay noqoto mid dhammaata maalintii u dambaysayna aan hadal dambe laga soo celin waxaan aad ugu faraxsanahay maanta dadkii igu horreeyay siduu sheegay inay halkan taariikh tahay taariikhdii ay ku heshiin lahaayeen reer Yucub iyo reer Qorraxay taariikhdii ay ku heshiin lahaayeen inay maanta mid dhalayso siyaasan horta u arkaa waxaan aad u jeclahay dadka halkan isugu yimid dhamaantii inuu horta calooshiisa furo oo isu furo oo fikirka loo yimid iyo jawigan hadda socda aynu aragno laga faa'iideysto sababtoo colaadu waxba ma keento wada xaajo dheer kadib waxa ay madaxda dhaqanka Yucub iyo Koodbuur ay heshiiska dambaysa ku gaadheen in halkaasi lagu soo afjaro colaadii dhaxmartay nabadna lagu heshiiyo wixii magah iyo walaalaynana bulshadu kala qaadato shirkii aan isugu nimid wuxuu ku dhamaaday guul wuxuu ku dhamaaday afgarasho wuxuu ku dhamaaday qolo walba wixii laga codsaday qolada kale inay u tanaasusho ka aqbashay ayagoo faraxsan waliba asal ahaan hadda waxa lagu heshiiyay ee ugu qiimo badan waa in nabad la ahaado laga bilaabo reerahan walaalaha ah isku qoyska isku midka ah inay walaalo nabada la ahaado hadda wixii ka dambeeya midaasan asalka heshiiska nagu ku asaasan yahay wixii dhibaato ahaa ee dhacay isagoo laga qoomamoonayo dhan walba gabagabadii Hogaanka Nabad Galyada Dr. Husseen Hashi Qaasim oo kaashanaya laamaha dawladda dadaal adagna ku bixiyay sidoo soo afjari lahaa colaadaasi ayaa uga mahad celiyay odayaasha guul ku tilmaamay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waana ku faraxsanahay in garaadkii iyo aqligii iyo waaya aragnimadii iyo bisaylkii iyo xikmadii la ku tuhmeeyay ay sideedii noqotay oo aad nabad ka gaadheen dhibaatadii yarayd ee dadka walaalaha soo dhex maray
waana ku faraxsannahay in mag la is siiyey kaliya ma aha walaalnimadii iyo isdhexgalkii hadda uu bilowday oo aad isku dhex jirtaan oo aad ballanteen oo hawsha ay si fiican u fulin doonto hadduu ilaahay yidhaahdo annaguna waan idin garab taagannahay waxa wixii dawlad looga baahnaa inay samayso way samayn hadduu ilaahay yidhahdo nabaddaasi adkeyn kara waxaan rajaynaynaa gobolkeenna waxyaabaha yarar ee ka jira inay ku dhammaan doonaan tusaalaha aad halkan dhigteen iyo nabad jacaylka annaguna nabaddaasaan idinla jecelnahay idinkana waan idin jecelnahay